ayuu ahaa shaqsigii ugu horreeyay ee ku guuleystay midab kala soocii ka jiray qaaradda Ameerika. Martin Luther King waxa uu ahaa shaqsigii ugu horreeyay ee ku guuleystay tirtiristii midab kala soocii ka jiray qaaradda Ameerika. Martin waxa uu ku dhashay magaalada Atlanta ee gobolka Georgia taariikhdu markay ahayd 1929. Waxa uu ka mid noqday dadweynaha ugu muhiimsanaa ee soo mara qaaradda Ameerika qarnigii 20aad. Waxa uu ka mid ahaa dadka kaniisadaha haysta, qoraa ayuu ahaa wax qoraa. Sidoo kale waxa uu dhaqdhaqaaqi jiray xorriyadda shacabka. Hadalladiisii caan baxay waxa ka mid ahaa halku-dhigii ahaa Rio ayaan leeyahay, taasi oo macnaheedu ahaa inuu caddeeyo halganka ugu jiro xorriyadda shacabka. 1964 waxa uu noqday shaqsigii ugu da'da yaraa ee ku guuleysta abaalmarinta adduunka ugu qaalisan ee la yiraahdo Nobel Peace Prize. Abaalmarintaasi oo ku mutaystay shaqadii uu ku guuleystay ahayd midab kala soocii iyo cunsuriyadii ka jirtay qaaradda Ameerika, isagoo ku wajahay dhaqdhaqaaqyo aan rabshado wadan. Ugu dambeyntii waxaynu soo qaadan doonaa mid ka mid ah halku-dhigyadii ku caan baxay. Halku-dhigaasi oo ahaa Rio ayaan leeyahay, maalin baa iman doonta afartayda carruurii ay ku noolaan doonaan qaran, iyadoon la qiimeyn doonin midabka jirkooda laakiin la qiimeyn doono dabeecadooda. Intaasi ayaan idinku soo afmeerayaa barnaamijka aan idinka diyaariyey ninkii ugu horreeyay ee ku guuleystay midab kala soocii ka jiray qaaradda Ameerika.